waxaa jiray wiil iyo gabar waxay ahaayeen saaxiibo aad iskugu dhow. gabadhii wiilkii ayay jeclaatay, laakiin asaga jecel saaxiibtinimo ayuu u qabay. jecelkaas wuxuu ahaa hal dhinac. maalin ayay gabadhii go'aan ku gaartay inay jecelkeeda sheegato. way wacday. halo haa maxaa sameynaysaa baaco? waan iska jiifaa dhiblaydeeda. inaa wax kuu sheegaa rabaa, ma is arki karnaane? aniga xitaa in aan wax kuu sheego ayaan rabaa. haye intee isku aragnaa? meesha kafeyga saacadda markay tahay 3 galabnimo. way damisay taleefanka ayadoo qalbigeeda garaacmaayo. aad ayayna u faraxsaneed. waxaa soo dhowaatay xilligii balanta. ayada waxay ku fakaraysay muxuu kugu jawaabi doonaa, maxaadse kala kulmi doontaa. waqtigii balanta ayaa la gaaray. way isdiyaarisay wayna baxday. markay tagtay meeshii balanta waxay aragtay saaxiibkeed oo fadhiyo oo sugaayo. way u tagtay. ugu dambayntii ma timid? hee animaa soo daahay. haye waayahay soo fadhiiso. ii sheeg noo maxaa ii sheegi rabtay? waxaan rabaa in aan kuu sheego arrin. maxaa waaye? saaxiibtaa Faadumo hee maxaa ku dhacay? waan isjecelnahay. waxaan rabaa in aan guursado. way naxday. ilin ayaana ku soo istaagtay. waxay qosashay qosol xanuun ka dambeeyo. waxay dhahday hambalyo, ugu dambeyn dumaashi ayaan yeelanaa soo maahan. alle ha ii kaa daayo. laakiin waa maxay ilintan kaa socoto? maya, waa idin farxadeed. wax maa iiga baahneed inaan baxaa rabaa. intee hee aniga iyo adiga wax badan maba wada joogin. waa daahay, waa inaan baxaa. boorsadeeda ayay qaadatay wayna baxday. ayadoo ilinta ka socoto ay qoysay dharkeeda. wiilkii wuxuu soo xasuustay maanta markay soo waceysay inay dhahday inaa